akhlaaqda iyo sifaadka wanaagsan waxaa ka mid a ilaalinta sirta iyo in laga fogaado faafinteeda, waana dhaqanka wanaagsan kaasoo uu islaamku la yimid. ruux kastana waxaa wanaagsan inuu dabeecad ka dhigto ilaalinta sirta haddii ay noqon lahayd mid naftiisa qusayso ama haddii ay noqon lahayd mid qusayso dadka kale. ilaalinta sirta waa qayb ka mid ah ammaanada. ammaanaduna waxa ay ka mid tahay waxyaabaha uu islaamku na amrayo. allah subxaanahu watacaala waxa uu na amrayaa in aan ilaalino ammaanada. ilaalinta ammaanadana waxa ay calaamo u tahay qofka iimaankiisa, oo qof aan ammaano lahayn waxa ay macnaheedu tahay waa ruux aan iimaan lahayn. ruuxa muslimka dabeecaddiisana waxaa ka mid ah inuu yahay mar weliba ruux ay ka muuqato akhlaaqdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. mana aan ruux jecel inuu faafiyo asraarta naftiisa ama dadka kale ay u siraystaan, maxaa yeelay asraarta oo la faafiyo waxa ay inta badan abuurtaa inuu ka dhasho fasaad ama dhibaatooyin keeni karo in lagu waayo waxyaabo badan oo ka mid a nolosheenna. cumar binu cabdicasiis waxa uu yidhi, qulubtu waa sida wiilka oo kale, bushimaduna waa daboolkooda, carabkuna waa furihii lagu furi lahaa, ee ruux kasto ha ilaaliyo sirtiisa furaheeda. sidoo kale luqmaanu xakiim waxa uu yidhi isaga oo u dardaaramayo wiilkiisa, wiilkaygiiyow waxaad ogaataa sirta oo la ilaaliyo waxa ay ku gaarsiinaysaa in uu badbaado sharafkaaga. in aan ilaalino sirta noocee doontaba ha noqotee waa waajib. ruux kastana waxaa laga doonayaa inuu xil iska saaro sidii uu ku xafidi lahaa sirta lagu aamino. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay, waxaad ku kaalmaysataan xaajadkiina in aad qarisaan oodan faafina, maxaa yeelay nicmo kastoo waxa ay leedahay dad xaasid ku ah. xadiiska waxa aynu ka fahmaynaa in ay wanaagsan tahay in mar weliba aan ilaalino waxyaabaha sirta noo ah, lagana ilaaliyo in ay faafto. waxaa la yidhi dadka waxaa ugu daciifsan ruuxa ka caajiso ilaalinta sirtiisa. ilaalinta sirta waxaa ka mid ah midda ka dhexayso labada qof oo lamaanaha ah, waxaana wanaagsan in ay sirtooda mar weliba ilaaliyaan. sidoo kale in aan la faafin ruuxa muslimka ah cawradiisa ama waxyaabaha ka dhaco khaladaad ah. waxaa kaloo ka mid ah ruuxa markii uu doonayo inuu sameeyo waxyaabo khayr ah oo wanaagsan in uusan soo bandhigin ilaa uu ka fulinayo ama uu ka gaarayo hadafkiisa. haddaba maxay tahay waxyaabaha aad ku helaysid ilaalinta sirta? ugu horrayntii inaad ilaaliso sirta noocee doontaba ha noqotee waxa ay ku horseedaysaa raalli ahaanshada allah. waxaad ku helaysaa inuu wanaagsanaado iimaankaaga, in dadku ay ku jeclaadaan, sidoo kale in dadku ay kugu kalsoonaadaan. haddaba in aan ilaalino asraarteenna waa arrin aad u wanaagsan. ruux kastana waxaa ku waajiba in uusan faafin sirta lagu aamino. sidoo kale waxa ayna noo horseedaysaa in aan noqonno dad ku sifooba akhlaaqda wanaagsan, taasoo islaamkuna amrayo. guntii aan ku dadaalno sidii aan uga shaqayn lahayn ilaalinta sirteenna si iimaankeenu u noqdo mid allah agtii laga aqbalo. in la badiyo aamusnaanta waxa ay ka mid tahay waxyaabaha wanaagsan taasoo diintu ina amartay, waana akhlaaqdii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam uu nooga tegay. aamusnaantu waa in aad ka joogsato hadalka adigoo awoodo in aad hadasho, balse ay tahay sababta keentay inaad aamusto cabsi aad ka cabsanayso inaad ku dhacdo waxyaabo aan wanaagsanayn oo ku gaarsiin karo cawaaqib xun aad ka qoomamayso mustaqbalka. islaamka waxa uu nagu boorinayaa in aan badino aamusnaanta, dhaqanna aan ka dhiganno, maxaa yeelay hadalka inta uu ku jiro gudahayna waxa uu leeyahay qiimo iyo awood aan ku ilaali karno, balse haddii uu mar u soo baxo bannaanka ma lihin awood aan ku xakamayno. soomaalidu waxa ay ku mahmaahan af daboolan waa dahab, waxa ayna macnaheedu tahay taas inta aad aamusan tahay wax weliba waa ay ku qarsoon yihiin, balse markii aad hadasho waxba ma awoodid inaad xakamayso. inta badan carabku waxa uu noo horseedi karaa in aan ku dhacno waxyaabo badan ee uu allah raalli ka ahayn, oo waxaa dhici karto markii uu hadalkeena bato inuu gaf ama qalad badan naga dhaco. saxaabiga lagu magacaabo mucaad binu jabal ayaa rasuulka weydiiyey oo ku yidhi, rasuulkii allow waxa aan ku hadlayno ma noola qabanaya? markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi, dadka waxa ugu badan ee naarta ku aruuriyo ama geliyo waa waxa ay ku kasbadeen carabkooda. allah waxa uu ku leeyahay qur-aankiisa kariimka ah isaga oo naga warbixinayo hadalka iyo culayska uu leeyahay, maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. aayaddani allah waxa uu noogu caddeeyey in naloo qabanayo wax weliba ee aan ku hadalno, laba malagna uu allah noo xil saaray oo qorayaan wax weliba aan ku hadalno. cali bini abidaalib allah ka raali noqdee waxa uu yidhi, ruuxa markii uu idlaado caqligiisa waxaa yaraada hadalkiisa. sidoo kale xikmo kale ayaa waxa ay leedahay, haddii uu hadalku ka mid yahay qalinka, aamusnaantuna waxay ka mid noqonaysaa dahabka. meel kale luqmaanu xakiim waxa uu ku yidhi wiilkiisa isaga oo la dardaarmayo, wiilkaygiyo
haddii ay dadku ku faanaan hadalkooda wanaagsan adigana waxa aad ku faantaa aamusnaantaada wanaagsan. Anas binu Maalik Allah ka raali noqday waxaa laga wariyey inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku yidhi saxaabiga lagu magacaabo Abu Dar al-Ghafaari, wuxuu yidhi Abu Darriyu ma ku tusaa laba xaalo oo doodkana ku fudud miisaankana ku culus? Markaasuu Abu Dar yidhi haa. Rasuulka waxa uu yidhi labada xaalo waa aamusnaanta oo aad badiso iyo in aad wanaajiso akhlaaqdaada. sidoo kale Abu Hurayra Allah ka raali noqday waxa uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka wariyey inuu yidhi ruuxii Allah iyo maalinta qiyaamaha rumeeyey ha yiraahdo khayr ama ha iska aamuso. haddaba maxay tahay waxyaabaha kugu saacidi karo inaad badiso aamusnaanta? marka hore in aad ogaato inuu Allah ku xil saaray laba malag kuwaasoo qoraya wax waliba aad tiraahdo. sidoo kale in aad ogaato in aamusnaantu ay ka mid tahay cibaadada aadna ku gaari karto raali ahaanshada Allah. in aad badiso aamusnaanta waxa aad ku helaysaa inaad ka badbaado waxyaabo badan oo kuu horseedi karo carada Allah iyo ciqaabkiisa. gabagabadii ku dadaal sidii aad ku yarayn lahayd hadalkaaga aadna ku badin lahayd aamusnaanta si aad uga badbaado cadaabka Allah iyo ciqaabkiisa. in la xafido carabka lagana ilaaliyo xumaanta waxa ay ka mid tahay waxyaabaha uu islaamka ina amrayo Allahna nagu waajibiyey, waana akhlaaqdii nabigeena Muhammad calayhi salaatu wasalaam. carabku waxa uu ka mid yahay xibnaha ugu qaalisan ee uu Allah makhluuqaadkiisa gaar ahaan insaanka ku galadaystay, waana nicmo uu Allah ina siiyey taasoo aan la soo koobi karin waxtarka iyo faa'iidada ay u leedahay nolosheena. inta badan insaanka waxa uu wax ku qabsadaa carabkiisa isagoona ku cadaynayo waxyaabaha uu u baahan yahay ee ku jiro niyadiisa si loo ogaado shayga saxda ah ee uu u baahan yahay. dhanka kale carabku waxa uu leeyahay ama keeni karaa mararka qaar dhibaatooyin fara badan taasoo ruuxa gaarsiin karto inuu ku mutaysto ciqaabka Allah iyo cadaabkiisa. maxaa yeelay carabka waxa uu sabab u noqon karaa in la abuuro dhibaatooyin iyo in lagu waxyeelay dadka. sidoo kale waxa uu ka qayb qaataa in lagu sheego beenta, xanta, cayda, isku dirka, lacnada iyo wixii la halmaalo, waana xubinta ugu badan ee ruuxa u hogaamiso inuu ku dhaco dembi. Mucaad bin Jabal Allah ka raali noqday ayaa waxa uu weydiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam, wuxuu ku yidhi rasuulkii Allow camalkee ugu khayr badan? markaasuu rasuulka carabkiisa soo bixiyey ayuu u tilmaamay. Mucaad ayaa waxa uu ku yidhi rasuulkii Ilaahayu waxa aan ku hadal ma noola qabanaya? markaasuu rasuulku ku yidhi Mucaad, dadka waxa ugu badan ee naarta geliya waa waxa ay ku kasbadaan carabkooda. xadiidku waxa aynu ka fahmaynaa in carabka uu qofku horseedi karo inuu ku galo cadaab haddii uu kula yimaado waxyaabaha aan Allah raali ka ahayn. shaydaanka waxa uu mar waliba ku dadaalaa sidii uu insaanka ku lumin lahaa una gelin lahaa waxyaabaha aan Allah raali ka ahayn. taasina waa ballankii uu shaydaan ku qaaday inuu insaanka lumin doono, balse ruuxa muslimka waxaa waajib ku ah inuu ka fakaro sidii uu uga digtoonaan lahaa shaydaanka iyo hageeryaashiisa, mar walibana ku dhaqaaqo sidii uu Allah ugu xirnaan lahaa, dhowrsanaashihiisana u heli lahaa si uu uga badbaado ciqaabka Allah. waxyaabaha ruuxa ugu kaalmayn karo inuu ka fogaado hadalka xun carabkiisana ku nabadgelya waxaa ka mid ah inuu ku fakaro in Allah uu daalacanayo, inuu ogaado carabka sababtiisa inuu ku geli karo cadaabka Allah kuna mutaysan karo ciqaab adag maalinta qiyaamaha, inuu xasuusto carabka inuu yahay nicmo Allah siiyey, haddii uu nicmadan ku gabad falana in Allah uu ku asiibi karo dhibaatooyin. sidoo kale ruuxa inuu xisaabta ku darsado in laba malag ay ilaalinayaan wax walibana uu dhahna u qorayaan, khayr iyo shar waxay ahaadaanba. haddaba in aynu ilaalino ama xafidno carabkeenna xumaantana ka celino waa arrin aad u qiimo badan, waxaana ku helaynaa inaan ka badbaadno ciqaabka Allah iyo cadaabkiisa. gabagabadii aan xafidno carabka uu Allah ina siiyey, xumaantana aan ka celino si uu Allah noogu sii baaqi yeelo maalinta qiyaamahana naga badbaadiyo cadaabkiisa. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن
ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.